sugannahay magaalada Qardho. السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب تقالي أمين كستوت شكتان في نمو ونكسن عيد مبارك كل عام وانتم بخير بإذن الله. هي ورحقين شقناها قردو حيوكم هيو غردو 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 ومالين مالين مالين ومالين مالين ومالين فرح مسلمين تعيدوا انكسب الدنيا فبقي يومين ما لا يسمسو ومال فرح مسلمين تعيدوا كسب الدنيا باقي يومين ما لا يسمسو يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي عيد مبارك كل عام وانتم بخير يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي عيد ونكسر كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير. ما شاء الله ما شاء الله. وقتي آد قرح بدن أي هذا كقاعدنا بيرت أيام كتشرنا هذا والله اسم الله إن مجال قردو أي لا ده هي بيرو آد قرح بدن سلاس وكلا حقيقة دي وحي كم هاي برواقة أي ودن كانوا لا ده هي مركب وحوي إن شاء الله تدونا حلي هي مجال قردو مركب إيمانية ملها سكريني مادان وصود الحستيان مركب داوشوا نكسر يد الله صحيح. waxaan u keenay ciyaalka halkan dalxiis ciyaalka oo ah ciyaalkeygii iyo ciyaalka abtigoo ahaa iyo ciyaaladii xaafadda oo dhan kuwa waxay ka mid tahay meelaha taariikhiga ah magaalada Qardho waxaa jira meelo badan oo Qardho loo dalxiis tago yaraanteena tagi jirnay waxaa ka mid ah Harageeyo waxaa ka mid ah Ceel Mur waxaa ka mid ah Ceel Jacle waxaa ka mid ah ceelashaas oo dhan ceelal badan bay Qardho Buurta Talyaaniga Kubo oo ah meelaha ugu quruxda badan Qardho waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan waana magaalo ka mid ah magaalooyinka la yiraahdo in Cabdulla Xasan oo raggii yaqaanay uu tilmaamay oo yiri dhul xagee ugu qurux badan deedna yiri afar dulo Qardhood oo doogstay ma ku daleen أدنى من كا مهدنية مهدنية سيدا سورة القانتين إن أدتنا أجد بسان وحوناسن مقال كوناسن يصور كوناسن ودنك وهون وحا انت بدن برباهنت أما مدعام هنقطه أما مد ودنك لوكال هنقطه وحي باهيان لبات الودن وحل الدلي فرح دعي مصيبة انبدا إعلام كنا انت بدن شغلي سابا سلاسة marka idaacad iyo TV iyo meel walba waxa laga hadlaa dhibaatooyinka waji ka duwan oo runtii aad iyo aad aan idinka mahadcelinayo ayaa keenteen inaad ka hadashaan wadanka horumarkiisa bilicdiisa quruxdiisa isla markaana la wadaagtaan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool wadanka saska iyo dhibaatada dhibtiisa loo gudbiyo inaad u gudbisaan sawir ka duwan
oo ah wanaagiisa horumarkiisa quruxdiisa intii waxaad loogu farxo aad baan idinku mahadcelinaya alxamdulilah si qurux badan ayaana lagu soo dhaweeyey guriga boqorka marka ay saaxiibayaal waxa weeye waxaan leeyahay guuleysta insha Allah hawshana socoto ha ku deeq dalkaaga يا عدلاحي ترونت ولا دوايا ساعات وانا قيتو الرجل مشغول سنين باش صار داوني يا تذكر مشغول سنين واتا باشي واتا تذكر مشغول سنين ايه لكن مختار ومشغول سنين باشي وتجنايا pose saaxiibayaal sida u jeedaan diyaaradeydii waxaa ku dhacday keed kadib markii aan isku dayay inaan ciyaalka ka ilaaliyo diyaaradda sida u jeedaan saaxiibayaal anuu raadinaya muuqaalo aad u qurux badan weliba joogos anoo ku dulsiinaya ayaa waxaan arkay ciyaalka yareeraa iyagoo daba ordaya kabacdina anuu isku dayaya inaan kor uga qaado ayaa keed ku dhuftay oo diyaaradduna waa jabtay marka saaxiibayaal waxaan idilkala dardaarmayaa inaad mar walba ka fikirtaan nabadgelyada dadka jooga goobta marka waxay dirajeenaya daaqasho wanaagsan marka saaxiibayaal weli waxaan ku sugannahay ya magaca qabo waay Snapchat ku jiraan Soomaaliya qayiranto way iska soo qandoodaan qayrkiina yaabiye miyaydan qaci lahayn qarbigaad u yaacdeen qabaanimiye liidnimo miyaad qaayibaysaan maxaa qumcu rasaaseed inta la isku qubayaa maxaa wiil la qowracay oo qooqu dheer yahay dhiiggan qulqulayo dadka laga qubaayo qisaastan la duutiyey quraankii la diidiyey aawa qiiradeennii qudha la iska jarayiyo qalalaaska maantaya iyo qoonsigaan dhacay khilaafkiyo colaaduna qisa weeye yaab leh aawa qiiradeennii badda qashinka lagu qubay sunta lagu qamiiriyey markabada qiriifka ah kalluunkeenna qaaliya iska qaadanayana yaa qaba sidaasoo qaanuunkee qoraaya ee macdinteenna qeyrin dawladaha qodanayo adduunyada u qaybshee aawa qiiradeennii bumantii ugaartana waa la wada qalluudaaye aawa qiiradeennii fircoon qaababkiisii soo kama qasowdaan qaaruun sidiisii soo kuma qancaysaan waa tii la qasifo oo la qarqiya ayaan qura qoonna waa la halligo qooma nuux sidoodii qabku waa wixii rogay qoon caad samuud iyo quralkay degayaan qaynaana lagu ragay qorshihii la keenanayaan yaan qallooc la moodine qodobada dastuurkana qowlkii ilaahay yiri qaraaraan ka yeelanay qabriga iyo qiyaamaha waxaad qabatay waad qiran oo qoorta lagu suri oo qoomama iyo ciil fartayaad qaniinina qof iyo hadeer joog intaan qalinku kugu dhicin oo qalaf laga siina qaadirkeenu barina qasnadu inoo furi qani weeye rabbigeen marna quusan maynee qafaarow allahayow safiihana ha noo qaban rabbow noo quweeyo qaybsanaanta naga dhow waxa weeyaan mukhtaar nuur aad baan u mahadcelinayaa barnaamijkan hindisay oo in badan oo dhowr sano ah waday maasha allah insha allah ilaah waxaan ka baryaa inuu sii wado oo sida uu jecel yahay yoolkiisa u gaaro waan ilaahay subxaana watacaala ku baryayaa waxa weeyaan tiimkan laftigiisa oo xaywaladan iyo cabdicasiis iyo cabdilaahi xabiib iyo dhammaantood iyaga laftigooda mahad gaara baan iyagana u soo jeedinayaa قاعد واشيك بدل anigu halkan markaan imaado asxaab badan baa soo kaxeeya oo magaalada iga soo wacda si ay halkan u yimaadaan isla markaana sawir aan uga soo qaado dadka halkan yimaada sawirada ay qaadaan facebookyada ay dhigaan dad badan ayaa daawada boosaaso qayb baa uga timaada halkan si ay halkan sawir ugu galaan sidoo kale Garowe magaalooyinka waaweyn ee Puntland dad badan baa ka yimaaday si ay cagaarkan isku sawiraan quruxdan meesha taala marka qurbo joogto kale markay daawadaan sawiradan oo kale wadanka ay dib ugu soo noqdaan sawirada iyaguna halkan ku galaan si ay indhaha caalamka u tusaan qurbo joogto kale ka maqan dalka
waxaan fariin ugu dirayaa inay halkan yimaadaan barwaaqadan biyaha iyo dhirta oo soo staala inay yimaadaan oo halkan ay ku damaashaadaan baan ugu baaqayaa kilibka dhaariga daawatay waag bari marka duways ما شاء الله horta magacaaga igu Abdullahi Muhammad Salam waa gartay Abdullahi xageed joognaa hel hare haye Abdullahi qosolka maxaa ku jeclaatay dadka ay qosol siiyay haye marka wanaagsan maxaa jeceshaan noqotay inaan noqdo injineer injineerta guriyasha sawira ciid wanaagsan ما شاء الله qardho siday nabad u tahay iyo alxamdulillah barwaaqadeeda waad aragtaan hadda gobolka noogu dhacay ceel haraan joognaa alxamdulillah dhalinyarada halka waqti ku wada qaadatay bacda iidkii oo lagu baashaalayo maxaad dareemaysaan idinka alxamdulillah xilliga kan oo gobolka noogu dhacay bacda maghrib aan joogno الهارة كشان تاي عشيه مغرب يا ودحينا marka wali waa joognaa nabad iyo xitaa qaybteen way soo naayeen halkan ay afurki ku cuneen marka ma sha Allah waa damaashaadaya marka dalka la yimaado nabad baa ka jirta barwaaqa ka jirta ma sha Allah sidoo kale to barwaaqadu waxay ku tusaysaa marka barwaaqa jiro kale to in waqtiga la doono meelaha noocan kale la joogi karo lagu nagaan karo ay wax laga yaabaa meeshan dhowr bilood ka hor abaar lahayd dadku xitaa simaantii baan jirin laakiin hadda heer waxay marayaan dadka reer qardhood iyo habeenkii xitaa qaarkood meesha u hoydaan qorina saxeer aniga maxaa tirahdeen عيدة 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 عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد وناسا كعيد waxaa lagu soo meeraya socdaalkii aan galabta ilaa hadeer aan ku joognay waa bacdul maqrib weeye goordhow aan tageynaa magaaladii baan tageynaa goobaheedii خرا قرنا سكر الله قعنا صوص الله قعنا marka kawa ساس بيجي الله